iyadoo laga joogo 3 cisho maalintii uu dabku kacay wali waxaa soo baxaya hantiyaha kala duwan ee dadku ka helayaan ee qasnadaha qasnadani markaad arkayso waxay kamid ahayd mid kamid ganacsadii suuqa waaheen waxay ka heshay dahabkii iyadoo sidoo kale ay kaga gubteen dokumentariyada iyo lacagtii sidoo kale meherad kamid iyaduna meheradaha suuqa waaheen ayaa waxa iyadoo ku jirtay goobaha gubtay ayaa waxa uga badqaba alaabtoodii arxim dawli gurmadku u socdaa dawladda hoose iyo dhammaan shaqaalaha qaranka Soomaaliland guud ahaanba ciidamadiisa kala duwan iyo dadweynaha shacabka saxaafadda ardayda ciidamada dhammaan kala gaarka sida darteed maadaama gurmadkii socdo imika xilligan waxaanu jabinay qasnad gabadhan oo la yiraahdo maamo Faadimo Ibraahim baan imika qasnadeedii jabinay waxaanu ka helay imika oo Ilaahay uga soo saaro u badbaaday waxoogaa dahaba iyo oo imika u badqaba iyo wixii dokumentarkiga iyagoo ku soo noqday inta dahabka dahabku gubtay laakiin oo ka dahabkeedii intaasaan imika jabinay ka soo saaray qasnadan annagoo ciidankan iyo shaqaalahan dawladda arkaysaan sidoo kale waxa imika nala joogo hawlgalka ku jiray nin taliyaha ciidanka bariga maama ma lacagu ma dahabu wax kuugu jiray documentary mise lacagina qasnada way kuugu jirtay lacagina way ku jirtay ma garan karayo wallahi hadir ma sheegi karayo been hadana sheegay ma sheegi karayo garan qiyaasta lacagta kuugu jirtay laakiin lacagna way kuugu jirtay maxay kale kuugu jiray documentary iyo lacag iyo documentiga iyo buugaanki iyo wax kasta way igu jiray may kan ma kan waa bedel way kii kala waa hooseeya kan waa bedel buu iyadu mahad celinaysaa dadkii kala qayb qaatay shaqaalihii dawladda hoose ciidankii oo iyagu cagaflaan ku soo saaray qasnad dhamaantood dadkii ila hawlgalay waa mahad celinaya khayr Allah idin leeyahay shalay ma timaday halkan maani man waan ilka celiyay 3 maalmood aan celinay intii dabku soconay waan celinay maanta ii soo gashay warqad la ii soo jaray oo anaami oo ina la igu soo daray ina kana la igu soo daray ها مامده هودي مركي ها أنا ودي عقف فلان مش كشقينيسي كدب مركي أن أركي عقفتيناني ده وحنا حوله ورقبين كريم أيان مامده كوري إن أنا وأقول من أنا جي شغالو لو كلا شغاله برتن وغيري ده وحنا كوري برتا قصة إسلام محمد ميرسان إسا وحنا لها ودينا كذا قاقنو عن برتي مركا وقلا صفقنو تويدي كأركو حكسو صارني وأنا ما سنتي ولا telefishanka waxaad kamid ahay dadkii meheradahooga goobta ku gubteen adiga meheradaadii ku bad qabtaa intan ma ahay in kale oo ka gubatay ma jirtaa assalaamu calaykum raxmatullaahi barakaatu waxaan ku lahaa suuqa laba meheradod baan ku lahaa waxaan furnay 2002 baan furnay muddo 22 sano ah ee shaqeynaysay qaybo waa taa ciid hor taalo oo way nabad qabtaa gudaheeda waxa ma qabto qasnadiyo lacagteedaan kala baxnay wax dhibaato ma soo gaadhin xitaa tiinarkii yaalay wixii xinihii ayagoo nabad qabaan kala baxnay daraatoole markii meesha habeennimadii ku saxnimadeedii tii kalena waa tan alaabta alxamdulillah waxa laga gubtay ma jiraan qalabka waa ku wada yaala dhismihii decorationadii waxaan ku sameeynaa baabaay mooyaane waxa la wax naga qasaaray ma jiraan alxamdulillah rabbil caalamiin goobtii ganacsiga la waayay taa ma sheegin oo taan ilaahay baa keenay doon mid ka khayr badan laakiin wax alaabaha naga qasaaray ma jiraan alxamdulillah wallahi markay qasnadaha goormad kala baxdeen iyaga qasnadaha waxaanu kala baxnay habeenkii gubtay subaxnimadii soo kala hanay salaadii hore marka halkaas baan ciido kale taas qasnaduhu noo yaaleen marka waan kala baxnay dahabkii iyo lacagtii iyo waraaqa guriga noo yaalay inta alxamdulillah oo nabad qabaan kala baxnay tiinarkii xinaha lagu marnay sidoo kala baxnay gubanin oo waxba noqonin talaagad baa taalo waxa may noqon sharaabka lagu sameyn jiray alxamdulillah waxa naga noqday bisha labada qaybood baan nabad qabaa dhismihii waxaan helay goobtii ganacsiga la waayay taana ummadda la qabnaan kala siman suuqa waaheen kaliya ma ahayn suuqa bacadlaha magaalada Hargeysa wuxuu ahaa halbowlaha Soomaaliland iyadoo jilmada iyo tafaariiqda lagu iibin jiray Fiima Yaasin Muuse telefishanka Cable Hargeysa